nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee isaga oo la hadlaya xaaskiisa Aisha waxa uu yiri guri aan timir oolin waa guri baahan. waa mirihii uu ugu jeclaa xabiibkeena Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. geed timirku waxa uu leeyahay la yaabkiisa. waa geed aan ka bixin dhulka dalagyada kale ay ka baxaan. abaar iyo aaran waa iskugu mid. miraha mucjisada leh ee timirta waxa lagu dabeeyaa xanuuno badan oo aan dhaqaatiirtu iyo cid kale awoodin. waana la isku caateeyaa sirba ha ahaatee. haddaba ma ogtahay in Soomaaliya ay leedahay beerta ugu weyn ee geed timireedka uu ka baxo? hadda waa geeska Afrika oo dhan. warbixintan ayaan ku eegi doonaa muuqaalkana sii faafi. Geesaley waa magaalo xeebeed ku taalla waqooyi bari ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka bari ee Puntland. waxaa ku yaala beerta timirta ee ugu weyn Soomaaliya iyo geeska Afrika. waa magaalo caan ku ah miraha barakeysan ee timirta. timirtu waa miraha ugu qiimaha badan dunida. waa mirihii uu ugu jeclaa xabiibkeena Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. geed timirku waxa uu ka mid yahay dhirta geedka ugu quruxda badan iyo mid ka mid ah kuwa ugu jooga dheer. waa miro cajiib ah oo mucjiso lagu tilmaami karo. nabiga nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee isaga oo la hadlaya xaaskiisa Aisha waxa uu yiri guri aan timir oolin waa guri baahan. quraanka iyo axaadiistuba waxa lagu wariyay marar badan iyadoona looga waramay nacfiga ay leedahay timirtu. haddaba waxa isweydiin mudan sidee loo soo saaraa dalagga timirta. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah geed timirku meel kasta kama baxo. waa dhirta naadirka ah ee aan laga helin dhulka dalagyada kale ay ka baxaan. geedka barakeysan ee timirta waa geed ka baxa dhulka kulaylaha ah, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysmin badi dalagyada kale ee la quutaa. dhulka ay timirtu ka baxdo waxa kale oo la yiraahdaa lama degaan. waana dhul saxare ah oo cimilo ahaan aad u kulul. miraha timirtu waxay maraan marxalado kala duwan. mar ay casaan yihiin iyo mar ay madow yihiin ilaa ay u diyaar noqdaan heerka quudashada. caalamkan geed timireedku waxa uu ka baxaa meelo kooban oo u badan dhulka muslimiinta, gaar ahaan Sacuudiga iyo wadamada Carabta ee ku yaala galbeedka qaaradda Aasiya. laakiin waxa iyadana xusid mudan in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada naadirka ah ee uu ka baxo geed timirka. boqolaal sano halkani waxay ahayd beerta ugu weyn ee geeska Afrika iyo Soomaaliya ee laga soo saaro timirta. waa Geesaley, magaalo caan ku ah timirta oo dhacda waqooyi bari ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan gobolka bari. waa mid ka mid ah beeraha ugu weyn ee Afrika guud ahaan oo si joogto ah looga soo saaro timirta. haddaba ma ogtahay in timirtu ay daweyso baahi walba oo aad qabto? cunno waliba waxaad ka heli lahayd ayaa ku kooban timirta. waxa ku jira ama ay ka kooban tahay karbohaydrate, borotiinaad iyo macdan oo jirku bani aadamku aad ugu baahan yahay. waana la isku caateeyaa sida ay culimadu qabaan, maadaama ay sidoo kale dawo u tahay calool fadhiga ama calool istaagga. waxayna dheeli tirtaa cunnada jirku uu u baahan yahay. mirahan macaan ee timirtu oo ay ku duugan yihiin mucjisooyin oo uu alle geedaha kale uga soocay. waxaa nabiguna faray inaynu soonka ku jabino xilliga afurka. intaan ka ognahay waxa ka badan inta qarsoon. Allah ayaa ku cilmi leh. bal adigu aragtidaada hoos nagula wadaag. muuqaalkana laag saar oo sii sheer garee